qoyskeedii ayaa dayriyey maadaama ay jeclaatay ninkan madow. aabbaheed ayaa doonay inuu ku khasbo nin caddaan ah sida iyada oo kale, balse wixii ku dhacay labadooda ee yaabka lahaa ayaa waxa uu bedelay caalamka oo idil. aynu iraahno xitaa waxa uu bedelay qaabka wax guursiga iyo cunsuriyadda ee ay ku dhaqmayeen wadamada reer Yurub. Mary ayaa waxay ka soo qayb gashay mid ka mid ah lecture laga jeedinayay jaamacad ay dhiganaysay, balse waxa ay la kulantay arrin yaab iyo ama kaag ku riday. ardaydii ay wax wada baranayeen oo dhan waxa kadis ku noqotay in wiil madow ahi soo galayo halka uu ka socday lecture-ku. way ku jeesjeeseen dhammaan ardaydu maadaama uu yahay wiilka kaliya ee madowga ah ee dhigta jaamacadooda. waxa uu dareemay ardaygani oo magaciisa la yiraahdo Jack muruga daran, waxa uuna ku dhawaaday in uu ooyo, waxaana sabab u ah sida ay ugu camiranayeen ee foosha xun. Mary ayaa ka naxday xaalkiisa, waxayna go'aansatay markii ay xiisadu dhammaato in ay wax yar la hadasho. waxay ku tiri waxba ha isku mashquulin camirashadooda, waxayna u ballan qaaday in ay caawin doonto inta ay waxbarashadu u socoto. waxay ogaatay Mary inuu yahay wiil ka yimid Afrika, Ingiriiskana u soo doontay inuu wax ka barto muddo waqtiyeysan. waxay noqdeen laba saaxiib oo aad isugu dhow. Maryna isaga waxay u ahayd saaxiibka kaliya ee uu ka leeyahay wadankan Ingiriiska. mar walba oo ay xiisadu dhammaato si wada jir ah ayay u wada bixi jireen, dhammaan dadkuna waxay ku eegi jireen indho yaabku ka buuxsamay. muddadaas oo ahayd 70 sano ka hor waxaan macquul ahaan jirin in la isku arko nin madow iyo gabar caddaan ah oo wada socda, iska daa wax kale. maalin ayaa waxaa arkay haweeney ka mid ah dariskeeda iyada oo la socota wiilkaas madow. waxay isla markiiba u tagtay Mary aabaheed, waxayna uga warantay inay aragtay gabadhiisa oo nin madow ah la socota. aabaheed ayaa dareemay xanaaq daran, waxa uuna rubaysan waayay in gabadhiisu ay wada socdeen nin madow. sidaas darteed ayuu aad ugu qayliyay heer uu gaaray inuu u gacan qaado ubixii uu dhalay. sidoo kale waxa uu ka joojiyay in ay ka baxdo guriga si ay ula kulanto saaxiibkeed. waxa kale oo uu la murmay Jack ugana digay in gabadhiisa dib dambe uga soo agdhawaado. Maryna waxay ahayd mid xabsi guri ku jirta ilaa uu aabaheed ka hubsaday in ninkii madooba uu wadanka isaga baxay. balse markii ay ku soo laabatay jaamacadda ayaa waxa ku bilowday dareen xiisitaan ah. waxay aad u tabtay saaxiibkeed Jack, waxay xasuusatay maalmihii ay wada bixi jireen. la joogidiisii waxay ka dhigaysay iyada mid aad u faraxsan. waxay hubsatay in dareenka intaas la eg oo dhan uusan ahayn dareen saaxiibtinimo oo kaliya marnaba. waxay noqotay mid rajaynaysa si aad ah inta nolosheeda ka dhiman isaga ay agtiisa ku dhammaysato, balse ma ay garanayso halka uu ku sugan yahay hadda, waayo waxa uu ku laabtay wadankiisii. balse bilooyin kadib iyada oo maraysa wado ayaa waxaa kadis ku noqday qof ugu yeeraya magaceeda. waxay ogaatay in qofkaasi uu yahay saaxiibkeedii duugoobay misana qaaliga ku ahaa ee Jack. waxa uu u sheegay inuu iyada mar walba ka fakari jiray, uusanna ilaawi jirin hal ilbiriqsina isaga oo og wixii uu aabaheed ku sameeyay, misana weli wuxuu qorsheynayaa sidii uu Ingiriiska mar kale ugu laaban lahaa. markii lacagtii uu ururiyay ayuu isla markiiba Ingiriiska u dhoofay. markaas ayuu Jack daaha uga qaaday dareenka dhabta ah ee jacayl ee uu u qaaday Mary. intaa kaliya kuma ekaane waxa uu u bandhigay in ay guursato, noqotana xaaskiisa weligeed. Mary waxay rumaysan weyday waxa dhacaya, waxayna noqotay gabadha ugu farxadda badan caalamka. waxay xasuusatay sida aabaheed u xanaaqi doono marka uu ogaado, balse ma aysan ahayn mid cabsanaysa. toos ayay aabaheed ugu tagtay una sheegtay in ay guursan doonto Jack. sidii ay filaysay aabaheed ayaa uga falceliyay qaab cabsi leh, waxa uuna qaatay go'aan naxdin gelin kara gabadhiisa. waxa uu ku yiri ma tihid gabadhaydii, waxa uuna ka cayriyay guriga una saaray wadooyinka iyo hoyga darbi jiifyada. iyadoo ahayd gabadh 19 jir ah, wax badanna aan ka garanayn noloshan isku tiirsanowda ah, balse wixii ugu horeeyay ee ay samaysay waxa uu ahaa in ay guursato jacaylkii cumrigeeda ee Jack. balse nasiib darro noloshii ayaa ku adkaatay isguursigoodii kadib. waxay la dhibaatoodeen sidii ay ku heli lahaayeen guri ay ku noolaadaan. dadka guryaha kireeyana waxay diidanayeen inay guri ka kireeyaan nin madow ah. xitaa haddii ay dadkaasi ogolaadaan in ay ka kireeyaan,
dariska ayaa booliska ku dacweynayay waana laga saari jiray guri walba. Waxa uu dheerayd in uu Jack ahaa mid aan wax shaqo ahayn, si kastuu u dadaalo oo shaqo u raadiyo, waxa kaliya ee shaqada loogu diidayaa waa in uu yahay nin madow ah. arrinkoodii waxaa sii adkeeyay markii ay Mary noqotay xaamilo ayna soo dhawaatay dhalmadeedii, balse ilmihii urka ku jiray ayaa dhintay isaga oo marayay bishii 8aad. lamaanahanina waxa ay dareemeen murugo aad u daran. Jack waxa uu hubsaday inuu ku khaldanaa inuu guursado naag cadaan ah, waxa uuna ka codsaday inay isaga tagto si aysan ugu dhibaatoon faqri iyo baahi, balse waxay u sheegtay inuu yahay hadda qoyska kaliya ee ay leedahay ayna ka jeceshahay xitaa nafteeda. hadalladaas runta ah ee ay ku cabirtay dareenka dhabta ah ee ay u hayso markii uu maqlay ayaa rajadii u soo celisay. ugu dambeyn waxa uu ku guuleystay inuu noqdo shaqaale warshadeed. Maarina waxay dhamaysay jaamacadeedii waxayna ka noqotay macallimad mid ka mid ah iskoolada. sanado kadibna waxay la heshiisay aabaheedii madaxa adkaasi dhib leh waliba inta uusan geeriyoon. inkastoo ilaa maanta aysan wax ilmo ah isu dhalin, balse waxay ku noolaadeen nolol farxadeed oo qurux badan muddo gaaraysa 70 sano oo dhammaystiran. inkastoon soo dhibaatoonay, inkastoon xanuuno soo dareenay iyo xaal walba oo aan isla soo marnay, hal ilbiriqsi allaha ka dhigay kama shalaynin guurkan isguursanay Jack. caalamkan waxaad u tahay hal qof, balse qof ayaad u tahay caalamka oo dhan. waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidaad u like garaysaan, u subscribe garaysaan, u follow garaysaan, u share garaysaan barnaamijyada aan soo galiyo baraha aan ku leeyahay internetka. waxaan kaloo ka codsanaya dhinaca hoose ee faallooyinka in aad ku soo mention garaysaan dadka aad la jeclaan lahaydeen sheekadan inaad la wadaagtaan. xagga hoose isla faallooyinkana aad ku soo qortaan ra'yigiina ku aadan sheekadan iyo waliba cunsuriyadda ka dhex jirta Soomaalida iyo habka ugu fudud ee cunsuriyaddaas loo maareyn karo. aad baad u mahadsantihiin. waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif. muuqaal dambe oo xiiso leh. salaama.